saxaafadda iyo dadka Soomaaliyeed oo na daawanaya marka hore waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka xigta shirkan jaraa'id oo ay isugu timid madaxda madasha samata bixinta oo madaxweyne Shariif hogaaminayo iyo dhammaan dadka kale oo madasha xubno ka ah wuxuu ku saabsan yahay arrimaha la xiriira doorashada la leeyahay waxay ka dhacaysaa magaalada Muqdisho doorashada halka dhinac ka raran isku caana shubka ah halka xisbi ah oo looga shaqeynayo si sharci darro ah xoolihii dalka waxaan aaminsanahay inay tahay doorasho lagu maran habaabinayo shacabka Soomaaliyeed sida naloo sheegay 61 urur ayaa iska diiwaan gelisay oo markii ugu dambeysay ay ku soo hartay in ka yar 20 urur siyaasadeed 61 meeshii ay bilowday inay isdiiwaan geliso sidii qof waliba uu uga qancayay khaladka socda ayaa markii dambe waxa ku soo haray in ka yar 20 urur siyaasadeed sababtoo ah qof walba oo isku dayay inuu si niyad wanaag ah uga qayb qaato wuxuu fahmay waxaan inay yihiin qorshe uu leeyahay hal xisbi oo looga shaqeynayo howlo gaar ah oo aan ahayn nidaam ku dhisan shuruucda iyo dastuurka dalka intii yareed oo ku soo hartayna haddii ay xataa isku dayeen inay olole galaan oo isku dayaan inay sheegaan xaaladda dalka sida ay tahay waxay ku soo dhamaatay iyaduna in xarig la xiro qofkii ka aragti duwanaada xisbiga hadda la leeyahay wuxuu gelayaa doorashada dalka shuruucdii aan la isku raacsanayn oo iyagu ay samaysteen oo loogu talagalay doorashada ay leeyihiin waa qabanaynaa in lagu qabto iyada laftoodii waa baalmareen marka hore waxay noo sheegeen in gudoomiyaha gobolka duqa magaalada Muqdisho ku xigeenadiisa la dooran doono waa iska daayeen waxay noo sheegeen in caasimadda golo loo dhisayo waa baalmareen iyadina waa iska daayeen sababtoo ah waa in marka hore laga shaqeeyaa maqaamka magaalada Muqdisho waa doorasho la leeyahay waa la qabanayaa waan sharci ku dhisnayn oo subaxii marka ay soo kacaan dadka ka shaqeynaya oo madaxweynuhu ugu horeeyo wixii ku soo dhaca ay u sheegaan ummadda Soomaaliyeed guddiga doorashada oo aan la isku raacsanayn waxa uu ka shaqeeyaa kaliya ama uu ku shaqeeyaa aragtida ay qabaan halkaas xisbi waa xisbi waa urur guddi doorasho oo u adeegaya kaliya rabitaanka qaabka iyagu ay rabaan sidoo kale nidaamka doorashada lagu hagaayo oo magaalada Muqdisho la leeyahay doorasho ka dhacaysa waxa maareeya shirkad ay shirkadda iyaguna leeyihiin ma jirto cid kor joogteynaysa ma jirto haba yaraatee cid la leeyahay liistadii waa tanaha nala eega sidoo kale lama garanayo cid la dooranayo markii hore waxaa naloo sheegay inay tahay liista furan hadda waxaa la yiri waa liista xiran yaa ku soo baxaya waxaa ku soo baxaya xisbiga haysta xoolihii dalka haysta awoodii dalka haysta guddiga iyagu ay magacaawdeen haysta shuruucan lala ogoleyn iyagu samaysteen haysta dhaqaalihii dalka haysta wax kasta oo dalkan ka jiray keligood ayaa is dooranaya keligood ayaa isu sharci ah keligood ayaa isku caana shubaya keligood ayaa natiijada shaacin doona ciddii marka intay timaado ummadda Soomaaliyeed ka dhaadhicin karta waxaas ayaa doorasho lagu sheegi karaa ayaan anaga noo sheegi karta in meeshaas ay cadaalad ka jirto waa aragtaan hadda dadka halkan taagan waa madaxdii dalkan ka soo shaqeysay waa dadkii loo yaqaanay dawladnimada Soomaaliyeed hal qof oo kamida oo doorashadaas qayb ka ah ma jirto
haddii la rabo inay shaqayso doorashadaasi waxay ahaan lahayd doorasho la isugu yeero dadka Soomaaliyeed u dhan yihiin ku astaysan shuruuc ku astaysan nidaam la isla ogol yahay liistada hadda annagu ma garanayno cid tartamaysa aan ahayn xisbiga la yiri wuu tartamaya markay doorashadu soo dhameystaan oo kombiyuutarada guryaha ay ku haystaan ay jawaabta iyo natiijada ka soo saaraan kaliya ayaa la ogaan doonaa qaabkee wax u dhaceen yaa meel la geenaya laakiin annagu hadda ma garanayno cid haba yaraatee la dooranayo kaliya waxaan meeshan isugu niminaa idin sheegno shacabka Soomaaliyeed u sheegno waa ayaan darro in xoogii iyo xoolihii ummadda Soomaaliyeed la geliyay meel aan ognahay inaanay natiijo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo diin u horseedayo aanay ka soo baxayn haddii aan nahay madasha mustaqbalka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed u cadeyno inaanan doorashadaas aaminsanayn inay doorasho sax tahay inaanan aaminsanayn natiijada ka soo baxaysa inay natiijo sax tahay inaanan aaminsanayn inay waafaqsan tahay shuruucda iyo nidaamka dalka u degsan inaan aaminsanahay inay tahay doorasho qole ay samaysatay si ay isugu daydo inay tiraahdo doorashan qabanay si ay u raadiso muddo kordhin aan laga aqbali doonin natiijadaasna annagu ma aqbali doono mana aaminsanin inay doorasho ahayd waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu